Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Maalmahan waxaa la isla dhex marayay oon maalin dhowto la daawaday YouTube-ka oo nin la leeyahay wuxuu ku takhasusay Maraykanku jooga wuxuu ku takhasusay sharciyada adduunka oo yidhi madaxweyne muuse biixi maalintii uu ku dhawaaqay 18 May in Somaliland ay geynayso ICJ ay geynayso amba waxa weeyaan International Court of Justice ay geynayso qadiyadda gooni istaagga Somaliland ayaa inkastoonan Twitter ka arkin anigu oon YouTube-ka un ka daawaday nin Soomaaliya oo leh waxay qadiyadaasi ku dambeynaysaa in labada dal la isku qasbo oo Soomaaliya iyo Somaliland la isku qasbo inay waxa weeyaan midoobaan ay ku dambeynaysaa haddii qadiyadda Somaliland la geeyo maxkamadda adduunka. Horta waa been ninkaas sharcigiisa iyo aqoontiisana ma garanayo waxaan ku buriyana ma garanayo waayo mabaan arag Twitterka la sheegayo iyo qofka la sheegayo Michael wax bay ugu yeedhayeen haddaba waxaan dabeetana damcay waayo wax walba horta waxa ka wanaagsan qofku inuu waxa weeyaan u yeesho intaanu hadlin inuu ka fiirsado wuxuu ku hadlaayo meel walbana ka eego qofaa sidaa yidhi ma noqonayso wax sharci oo meel mara marka waxaan doonaya inaan Kosovo iyo arrinteeda markii ay geysay gooni istaaggeeda ay geysay adduunka bal waxa intaan yar baan akhriyaa dabeetana waxaan ku noqonaynaa website kale asagana markii Kosovo ay gooni istaaggeeda ku dhawaaqday ayaa waxa weeyaan dowladaha United Nationka ayaa waxay qaar yidhaahdeen United Nationka sharcigeeda ma ka hor imanayaa in dalkani uu gooni u istaago marka wixii ka soo baxay dadna maxkamadda adduunka ayaa loo gudbiyey qodobkaas bal wixii ay ka yidhaahdeen iyo siday wax u dhaceen aynu eegno marka wuxuu yidhi advisory opinion on Kosovo Declaration of Independence waa guddi loo diray inay ka soo war helaan dhawaaqitaanka ay ku dhawaaqday Kosovo inay gooni u istaagayso. Accordance with the international law of United Declaration of Independence in respect of Kosovo was a request of an advisory opinion referred to the International Court of Justice by the United Nations General Assembly regarding the 2008 Kosovo Declaration of Independence. 2008 markii ay ku dhawaaqday Kosovo inay gooni u istaagayso ayaa waxaa loo gudbiyey maxkamadda adduunka oo ay u gudbisay qaramada midoobay golaha guurtideedu in ay ka soo warbixiyaan bal sharciga ay ku fadhido in Kosovo ay gooni u istaagi kartiyeen kale. The territory of Kosovo is subject of dispute between Siberia and Republic of Kosovo established by the declaration. Labada waxay u dhaxeeyeen labada dispute-ka amba afgarawaagu wuxuu u dhaxeeyey Kosovo iyo Siberia oo leh Kosovo naga mid tahay iyo Kosovo oo leh maya kama mid nihin ee gooni baan u istaagana. Marka this was the first case regarding unilateral declaration of independence to be brought before the court. waana markii ugu horreysay bay ahayd ee dal gooni inuu doonayo inuu istaaga uu hor keeno waxa weeyaan maxkamadda adduunka uu hor keeno qadiyadiisa. Haddaba wuxuu yidhi the court delivered its advisory opinion on the 22nd July 2010 by a vote of 10-4. maxkamaddu deetna go-aankeedii waxay soo saartay 22 July 2010 by a vote of 10-4. It declared that the adoption of Declaration of Independence of the 17th February 2008 did not violate, I want to underscore that, did not violate general international law because the international law contains no prohibition on declaration of independence, nor did the adaptation of the Declaration of Independence violate UN Security Council Resolution 1244, since this did not describe Kosovo
Kosovo's final status, nor did the Security Council reserve for itself the decision on a final status. Marka 10-4 waxay soo saartay maxkamaddu in shuruucda adduunka Kosovo inay gooni u istaagto inaanu violate garaynin. Waa laba United Nationka amba General Councilka sare in aanay violate garaynin xuduudihiisa amba waxa weeyaan shuruucdiisa. Marka haddii aanad sharciga adduunkana aanad violate garaynin, Security Councilkana aanad violate garaynin, waxay noqotay markaa in Kosovo ay xaq u lahayd inay gooni ugu dhawaaqdo keligeed si unilateral oo kelinimo inay ugu dhawaaqdo waxa weeyaan gooni istaageeda. So there were many reactions to the decision, with most countries which already recognized Kosovo hailing the decision and saying it was unique and does not set a precedent, while many countries which did not recognize Kosovo said they would not be doing so. The ruling could set precedents for endorsing secession in other places. Marka labadii qole haysatay qoladii lahayd Kosovo way go'i kartaa. Kosovo ku ictiraaftay iyo kuwii aan ictiraafin waxay isku qabsadeen war sharcigan rulingkan amba waxa weeyaan maxkamaddu qaraarkan ay soo saartay wuxuu noqon karaa qaraar u horseedaya inay dowladaha kalena ay iska go'aan oo yidhaahdaan gooni baanu istaagaynaa. Marka waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo Kosovo gooni bay keligeed ugu dhawaaqday, Somaliland gooni bay keligeed ugu dhawaaqday, Soomaaliya haysata oo nagama go'i kartid, Siberia ayaa Kosovo haysatay oo lahayd nagama go'i kartid. Maxkamadda adduunka la geeyey, maxkamadda adduunka 10-4 waxay u codaysay in waxa weeyaan aanay in qadiyadda Kosovo ee goonita istaagii ay ahayd mid sharciga ku tirsan. Marka YouTube-yada waxaan dadku soo gelinayaan xaaraanta aanu maan fahmin. Dadku waxay ka leeyihiin ilaahayna waa qoraya, waxay odhanayaan haddii sharci laga hadlayo qofku amba journalist uu yahay uu doonayo inuu journalismka integritydiisa ilaaliyo iyo sharafta wariyayaasha, waxaa muhiim ah in qofku uu horta baadho wuxuu ka hadlayo. ilaahayna dad muslimana waynu nahay oo weliba innaka sharciga adduunka iyo sharciga caqliga quratayna ma qabtay, sharciga islaamka ayna qabtaa asaguna. ilaahayna wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun. war wax sidoo kale yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu. marka waa waxyaabaha maskaxdeeda ka weyn in qof iska soo fadhiisto Facebooka uu yidhaahdo war degdega amba uu yidhaahdo qof baa ka naxay hadal amba uu yidhaahdo si uu ugu soo jiito dadka ummadiina isku kiciyo research iyo waxa weeyaan baaritaana aanu samaynahay. Intaasaan doonaya inaan ka jawaabo oo aan ku daro mid kalena aan ku daro ICU-ga laftigooda website-koodan rajaynaya inuu asaga laftigiisu qaraarkay ka soo saareen inuu eegna asaga laftigiisa 2010 July ayay ka soo saareen Kosovo iyo asagana waad u noqon kartaa waad akhri kartaa in yar baan ka akhriya asagana waxa weeyaan Declaration of Independence in respect to Kosovo, accordance with the international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo. Kosovo gooni istaaga ay ku dhawaaqday wuxuu sharci yahay uu waafaqsan yahay shuruucda caalamiga ah. bal hadeeg waxa weeyaan waa qaramada midoobay maxkamaddii adduunku qaraarkay soo saartay ayaa ciwaan ay uga dhigtay inay sharci yahay. halka website-kooda ka heli kartaa PDF filekaas website-koodu ku jira. marka ma aha in la iska yidhaahdo un hebel baa yidhi Somaliland hadday gooni maxkamadda adduunka la tiigsato Soomaaliya ma faa'iido uguma jirta amba way ku baaba'aysaa qasab baa lagaga dhigayaa inay Soomaaliya ku biirto. been inay tahay 14 muxuu ahaa xaakim ee qaramada midoobay maxkamadda ugu sarreysaa markay fadhiisteen
14 waxay yidhaahdeen waa sax inay Kosovo gooni uga go'day Siberia uga go'do 4 ayaa diiday marka qaraarka sharcigiisa muxuu noqday in ay tahay wax waafaqsan sharciga inay Kosovo go'i karto Somalilandna saas haday maxkamadda adduunka tagto unbaa dee la odhanayaa presidents baana jira haddaad lawyer tahayna presidentsku waa waxyaabaha ugu muhiimsan maxkamadda adduunka ugu sarreysa maraykanka ugu sarreysa ee supreme courtka la yidhaahdo de wax president maxkamadaha ka hooseeyo dham waxay ku shaqeeyaan wax presidents la yidhaahdo war waxaan qaraar ma ka soo saartay maxkamadda sare ee maraykanku hadday haa tahay maxkamadaha hoose waxay ku qasban yihiin in ay sharcigaa sidiisa ku socodsiiyaan haddii ay doonayaan inay challenge gareeyaan waa inay maxkamaddii sare dib ugu noqoto oo maxkamaddii sare haddana qaraar kale soo qaadato marka iyaynaan iswareerinin dadka muslimiinta ha beenta ha laga daayo caqliga waa inuuna qabto dhaarashada aynu dhaaranay report generalsku ay dhaarteen iyo integritigooda waa inuu qabto sharciga adduunku waa inuu ku qabto waata kale diinta islaamka oo wax walba ka weynay hadalkaynu odhanayno inuu waafaqsanaado waxa jira oo aanay been iyo exaggeration iyo hyperbole iyo mijo habaabani aanay ku jirin waa inaan u nidhaahno asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu intaasaan waxa weeyaan doonaya inaan idila sheergareeyo madaxweynuhuna wuu ku saxsan yahay hadduu doonayo inuu maxkamadda adduunka geeyo soomaaliya oo gooni ugu dhawaaqo sharci weeyaan waynu samayn karnaa inkasta oo de waxa weeyaan sharaf darradaas iyo waxa weeyaan isqabqabsiga anigu aaban ka soo horjeedo oon leeyahay waxan waa qadiyad fudud weeyaan soomaaliya 2 option baa la hordhigi karaa oo la odhan karaa okay 10 sano amba 20 sano sida waxa weeyaan ay isku yihiin Hong Kong iyo China ay isku yihiin aynu kala noqono oo waxa weeyaan hal dal iyo 2 system oo kala duwan system Somaliland u gooniya iyo system Soomaaliya u gooniya laakiin hal dal la wada noqon karo oo Somaliland waxeeda ciidamadeeda baasaboorkeeda waxeedaba ay gooni u tahay oo baasaboorka Soomaaliya iyo baasaboorka Somaliland kala duwan yihiin xuduuduhu ay kala qaybsan yihiin oo xuduud kasta markood ka soo talaabisid xagga Soomaaliyana aad u talaabisid oo Somaliland xagga Somalilandna aad u talaabisid oo Soomaaliya dadka Soomaaliya ka soo galaya ee soo galaytiga ee Somaliland soo galaya ay noqonayaan sida dadka Mareykanka iyo Ethiopia ka soo galaya oo ay sharci aanay ku lahaanahayn degi karaan maxay hayday xuquuq sharciyadaanay ku yeelan karahayn oo ay noqonahayn dad waxa weeyaan citizen laakiin ay noqon karaan dad ka shaqaysanaya dad joogi kara dad ku noolaan kara taxeska iyo waxa weeyaan cashuuraha bixinaya dadka Somaliland ka baxaya Soomaaliya tagayna saasoo kale ay noqdaan dad waxa weeyaan dalka u martiya taas oo la sameeyo oo anigu waan u malaynaya inay ka fududahay kala go'a amba isku tagga ayaan ku talin lahaa hase ahaatee taasuma horta waxa weeyaan ka jawaabayay dadka YouTube iyo Facebook waxaa soo dhigayaana waa research sameeya oo baara inta aanay idaan hadlin waayo ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waxa weeyaan malaa'ig baa ku dul saaran qoraysa hadal kasta oo tiraahdo ilaa taaha ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu markii uu naftu ka sii baxaysay baa waxa weeyaan uu tahay dadna saxaabada kamid baa ku yiri maad maqal ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waxba kama soo baxaan carabka qofka ilaa waa la qoraa markaasuu taahiibu joojiyay uu yiri taaha ayaan layga qorin oon la moodin ilaahay agtiisa in ilaahay waxa weeyaan qadarka iyo xanuunka uu ii qoray aan ka cabanayo warniyow dadkan anigu ma fahmini YouTube-ka in laga xiraaba fiicane laakiin munaafiqnimada intan leeg hala joojiyo Somaliland iyo Soomaaliya dadka leh hal isku biiro anigu waxa ugu yaraan idin soo qaadan karaa waxa weeyaan marka shantii Soomaaliya isku tagay ay ayaga heshiin kari laayihiin maxaa Somaliland si la isku heshiinaya
taasa horta waxa weeyaan haddii federalism uu jiro federalismka ogolaan karaya waxa maraykanka dhacaya bal adigu maanta madaxweynihii maraykanka waxaa loo diidaya magaalooyinka qaarkood inuu tago iska daa inuu magaalooyinka qaarkood tagee halkii baaladka loogu ridaye waxa weeyaan doorashooyinka ayaa loo diiday in magaciisa lagu daro magaalooyinka qaarkood oo sharci laga soo saaro haddii farmaajo la yidhaahdo iyadoo somaliland somalia haddii laga soo qaado inay mid yihiin oo deetna somaliland tidhaahdo may ee amba gulmudug tidhaahdo amba puntland tidhaahdo farmaajo kuma jiri karaayo sanduuqa codaynta magaciisa kuma soo dari karaayo dagaal bay qaadayaan halkan dagaal lama qaadayo sharci baa laysla tiigsanaya marka federalismka aad sheegaysaan haddaanu halkaa gaadhsiisnayn oonu dastuur cadow wax walba kala xudaynaya aanu hayn taniyo anigu maa fahmin federalismka aad ka hadlaysaan maa fahmine amba hala kala go'o gooniha loo kala go'o amba one country two system laba system iyo hal dal hala noqdo amba waxa weeyaan de wax kale ma arko marka taasaan ka leeyahay dadka caqliga leh maskaxda leh aan jiboonahayn jibadu 1960gii bay nagu dhacday jibadaasi meel xun bayna la gaadhay 30 sano oo burbura bayna la gaadhay 60 sano oo reer qurata ay talinayaan bay gaadhay markaas waxaanu ka baxno khuuradaaynu ka baxno riwaayadaynu ka baxno dadka muslimiinta ayayna maja habaabinin wariyaashan waxaan leeyahay research sameeya intaydan odhanin hadalka waayo ilaah maalin baa idinka dambaysa laydin weydiin doono sharciga iyo caqliga iyo maskaxda iyo sharciga adduunka intaba ka imo oo ilaahay markaad u timaadid maalin baa jirta lagaaga dambaynaayo taasi waa inay ku qabato hadday wax kale ku qaban waayaan asalaamu calaykum